xaydha calooshu maaha oo keliya dhibaato caafimaad balse sidoo kale way xumaysaa muuqaalka. xaqiiqdu waxay tahay ku lahaanshaha qadar badan oo xaydha agagaarka caloosha waxaa si xoog leh loola xidhiidhiyo xanuunada sida nooca labaad ee macaanka iyo xanuunada wadnaha. sida awgeed iska jirida xaydha calooshu waxa ay keentaa faa'iidooyin caafimaad oo badan iyo inay ka caawiso cimriga oo dheeraada. xaydha caloosha badanaa waxaa laga cabiraa wareegga dhexda, waxaanad ku samayn kartaa si fudud adoo gurigaaga jooga inaad iscabirtid. cabir kasta oo ka kormara 40 inch oo u dhiganta 2 sentimitir oo ragga ah iyo 35 sentimitir oo u dhiganta 8 sentimitir oo haweenka ah waxaa loo aqoonsan yahay cayilka xad-dhaafka ah ee dhexda. waxaynu soo gudbin doonaa aragtiyo la cadeeyay oo xal u ah hanaanka la isaga jari karo xaydha caloosha marka loo eego qaybaha kale ee jirka ee baruurta leh. jooji sokorta. cunitaanka xad-dhaafka ee sokortu waxay sare u qaadaa xaydha badan ee fuusha caloosha iyo midda ku samaysanta beerka. tanina waa xaqiiq, gaar ahaan sharaabada sokorta ka samaysan sida kuwa soodhaha leh. daraasado ayaa muujinaya sokorta ku jirta cabitaanadaas in lala xiriiriyo 60% sare u kaca khataraha cayilka ama buurnida. borotiin badan. cunitaan badan oo borotiin wuxuu sare u qaadaa shaqada habdhiska cunno burburinta iyo hoos u dhigida heerka gaajada. waa mid saameyn waxtar leh waana hab loo rido miisaanka. cilmi-baaris dhowr ah ayaa soo jeedinaya in borotiinku uu si gaar u yahay mid ka hortag u ah xaydha caloosha ka ururta. karbohaydraytka yare. xadidida karbohaydraytku waa mid si weyn kaaga caawinaysa hanaanka loo rido xaydha caloosha. daraasado ayaa tusaya joojinta karbohaydraytku ay si gaar ah saameyn ugu leedahay inay meesha ka saaraan xaydha caloosha ku samaysanta iyo xubnaha kaaga dhow sida beerka. fiber badan. waxaa jira cilmi-baaris dhowr ah oo caddeyn u ah faa'iidooyinka caafimaad ee fiberta kuna horkici kara riditaanka xaydha caloosha, waxaana sabab u tahay kor u qaadida caafimaadka dheefshiidka iyo hoos u dhigida xanuuno dhowr ah. jimicsiga fudud. waa mid waxtar leh jimicsigu haddii aad isku daydid si aad u ridid xaydha caloosha. sidoo kale jimicsigu wuxuu leeyahay faa'iidooyin kale oo caafimaad iyo inuu kaa caawiyo inaad noolaato waqti dheer. jimicsiga fudud sida socodka, orodka iyo dabaasha waxay sabab u noqdaan hoos u dhigida xaydha caloosha sida tirooyin daraasadaha lagu arkay. seexo hurdo kugu filan. hurdo yarida waxaa lala xidhiidhiyaa sare u kac ku yimaada miisaanka, waana mid khatar ah. helitaanka hurdo kugu filan waa mid ka mid ah qorshayaasha ugu horeeya ee miisaan ridida iyo kobcinta caafimaadka. soon. ku celcelinta soomitaanka iyo habka cuntada oo aad bedesho adoo waqti u dhaxaysiinaya xilliga cuntada iyo soomitaanka. daraasado ayaa soo jeedinaya inay tani tahay tan ugu horeysa saameyna leh habka loo rido miisaanka iyo xaydha caloosha. sinjibiishu waa geedgaab kuwa caleenta leh, waxaana la isticmaalaa xididkiisa iyadoo loo adeegsado cuntada lagu macaaneeyo amaba lagu udgoonayo. waxaana sidoo kale loo isticmaali jiray dawo ahaan taariikh hore. geedkan ayaa markiisii hore lagu arkay asal ahaan koonfurta dalweynaha Shiinaha, dabeedna wuxuu u gudbay dalka Hindiya. waana halka la rumaysan yahay inuu asal ahaan ka soo galay qaaradda Afrika iyo Yurub oo ganacsi xooggan kala dhexeeyay Hindiya waagaas. sinjibiisha waa la isticmaali karaa haddii ay qoyan tahay, qalalan tahay, haddii la ridqo, haddii saliid laga dhigo iyo haddii la miiro intaba. mararka qaarkoodna waxaa lagu daraa cuntooyinka la warshadeeyo iyo waxyaabaha la isku qurxiyo qaarkood, balse waxay caan ku tahay cuntada oo lagu daraa. sinjibiisha waxaa ku jirta maadada gingerol oo muhiim u ah caafimaadka. sinjibiisha ayaa dawo ka ah yalaalugada ama lalabada sida lagu xaqiijiyay cilmi-baaris la sameeyay oo ay ka qayb galeen 1278 haween uur leh. waxaana la ogaaday in isticmaalkeedu uu hoos u dhigo yalaalugada ama lalabada xilliga uurka. laguma sheegin cilmi-baarista in sinjibiisha ay mataga ka dawo tahay. qaadashada xaddi u dhaxeeya 1 ilaa 1.5 gram oo sinjibiil ah waxay ka hortagtaa noocyada yalaalugada ama lalabada sida tawalaca, qalliinka kadib iyo dawooyinka kiimikada ah. isticmaalka sinjibiisha ayaa hoos u dhigta murqa xanuunka. qaadashada xaddi ah 2 gram maalin kasta ayaa maalinta xigta hoos u dhigta murqa xanuunka, waana mid saameynteeda leh. gaar ahaan waxay dawo u tahay murqa xanuunka la dareemo xilliga jimicsiga. xanuunada lafaha iyo isgoysyadu waa xaalad caafimaad. cilmi-baaris la qaaday ayaa hoosta ka xariiqay in qaadashada sinjibiishu ay tahay dawo xanuun baabi'iye ah oo waxtar leh, waxaana la mid tahay dawooyinka xanuun baabi'iye ah sida ibuprofen. baaris weli cusub, balse sinjibiishu waxay leedahay astaamo awood badan oo ay kaga hortagi karto cudurka macaanka. cilmi-baaris la qaaday sanadkii 2015 oo ay ka qayb galeen 40 qof oo qaba macaanka noociisa labaad qaadanayeen 2 gram maalin kasta oo sinjibiisha ah ayaa la arkay iyadoo hoos u dhigaysa sonkorta dhiigga ku jirta. sinjibiishu waxay u muuqataa inay sare u qaado faaruqinta caloosha cuntada kadib oo dadka qaarkood kala kulmaan calool xanuun haddii cuntada la burburin waayo. waxaana faa'iido u tahay dadka ka cawda dheefshiid xumada
iyo xanuunada caloosha lala xiriiriyo. Daraasad la sameeyay ayaa lagu ogaaday qaadashada 1 garaam oo sanjabiil ah oo la riday cuntada ka hor inay muhiim u tahay caafimaadka caloosha iyo cunno burburinta. Sanjabiishu waa mid ka mid ah dawo dhaqameedka xanuun baabi'iyaha ah, gaar ahaan xilliga caadada haweenka siiba maalmaha ugu horeeya. Waxaa jira waxyaabo caddeynaya in sanjabiishu ay hoos u dhigto cholesterol-ka oo sabab u noqon karta xanuunada wadnaha. Tijaabo lagu sameeyay 45 maalmood oo xidhiidh ah, 85 qof oo dhiigooda ay ku badan tahay cholesterol qaadanayna maalintii 3 garaam oo sanjabiil ah ayaa la arkay inay hoos u dhigtay. Sida lagu sheegay daraasado kala duwan oo la sameeyay, sanjabiishu waxay ka hortagtaa hawlgabka maskaxda iyo dhaawaca unugyada maskaxda ay sababaan oxidative stress. Waxaana sanjabiisha ku jira maadooyinka antioxidants iyo bioactive. Sanjabiishu waxay sare u qaadaa shaqada maskaxda sida xasuusta. Sanjabiisha waxaa ku jirta maado la yiraahdo gingerol, waxay ka hortag wax ku ool u tahay faafitaanka cudurka kansarka. Maadada gingerol oo laga helo sanjabiisha waxay ka hortagtaa caabuqa ama infekshanka, waxay awood badan tahay xilliga ay qoyan tahay isticmaalkeedu. Waxaa hubaal ah inay ka hortagto korriinka bakteeriyada noocyadeeda kala duwan, waxaanay dawo u tahay xanuunada afka ku dhaca gaar ahaan ciridka.